bandhiga barnaamij wax iftiimiya. tobankii bishii Rabiicul Thani 1446 hijriyada kuna beegneed 14kii bishii November 2022 milaadiga galab axada waxa garoonka Hargeysa Stadium ee degmada Axmed Dhagax laga daahfuray tartanka degmooyinka caasimadda Hargeysa oo ay si wada jira iskaga kaashadeen dowladda hoose Hargeysa iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland. tartanka degmooyinka caasimadda Hargeysa waxa ka qayb galay 8 degmo ay ka kooban tahay caasimadda Hargeysa kuwaas oo kala ah Gacan Libaax, Axmed Dhagax, 26 Juun, Ibraahim Koodo, Maxamuud Aybe, Axmed Macnaar, Maxamed Mooge iyo 31 May. waxaana degmo walba u matalayay hor loo soo xulay ka qayb galaan tartankan oo markii labaad lagu qabto garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa. kulankii furitaanka tartanka degmooyinka caasimadda Hargeysa ayaa lagu daahfuray labada xul degmo ee kala ah 26 Juun iyo Axmed Macalin Haruun iyadoo kulankaas ku soo idlaaday barbaro halyaala. muhiimad bay u tahay ciyaaraha iyo dhiirigelinta inagoo ku shaqeynayna siyaasadda guud ee qarankeena oo nagu hogaaminaya madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa weeyaan ciyaaraha iyo sportiska dhiirigelin weyn ayaan u haynaa haddaan nahay golaha deegaanka caasimadda. waxaan naga go'an kuwa dambana inaanu garab istaagno kuwa guud ee qaranka iyo kuwa kaleba diyaar baan u nahay insha Allah billahi kariimna. kooxdii qaranka ayaa ka soo bixi doonta ciyaartooyda maanta ciyaaraya. xulka degmada 26 Juun waxa uu tartanka ku dhaliyay 3 gool waxaana laga dhaliyay 4 gool. xulka degmada Axmed Macalin Haruun wuxuu tartanka ku dhaliyay 5 gool waxaana laga dhaliyay 7 gool. xulka degmada Ibraahim Koodo waxa uu tartanka ku dhaliyay 1 gool waxaana laga dhaliyay 1 gool. xulka degmada Maxamuud Aybe waxa uu tartanka ku dhaliyay 4 gool waxaana laga dhaliyay 1 gool. xulka degmada 31 May waxa uu tartanka ku dhaliyay 5 gool waxaana laga dhaliyay 6 gool. xulka degmada Gacan Libaax waxa laga dhaliyay 1 gool waxna ma dhalin. xulka degmada Maxamed Mooge waxa uu tartanka ku dhaliyay 3 gool waxna laga ma dhalin. iyo xulka degmada Axmed Dhagax oo tartanka ku dhaliyay 8 gool waxaana laga dhaliyay 6 gool. guud ahaan muddadii 15 maalmood ee tartanka degmooyinku socday waxa lagu soo dhaliyay 29 gool waxaana xusid mudan in xulka degmada Gacan Libaax noqday xulkii aan goolan dhalin. ciyaar aad iyo aad u fiican bay ahayd, ciyaar aan ku raaxaysanay bay ahayd, ciyaar weerar iyo weerar ahayd bay ahayd. waxaan oran karaa dhalinyaradeenna maanta soo kacaysa in ay labadii sannadood ee aanan iman runtii aan arkayo in tadawur badan iyo horumar badan dhinaca xirfadda kubadda cagta ah aan hadda indhahayga ku arkayay. waxaana ilaahay ka rajaynayaa in halkaa aynu joogno aynu kor uga sii kacno oo aynu meel wanaagsan gaadhno. markan waa galabnimo Jimco ah waana 29 bishii Rabiicul Thani 1443 kuna beegneed 3 bishan December 2022 sanadka miilaadiga. waxaana final wada jooga labada xul degmo ee Maxamed Mooge iyo Axmed Dhagax waana kulan ku soo idlaaday barbaro eber iyo eber ah loona gudbay gool ku laagayaal waxaana 5 iyo 4 ku badiyay xulka degmada Maxamed Mooge sidaana ku hantay koobkii degmooyinka caasimadda Hargeysa ee muddada 15 maalmood ka soconayay garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa. ilaahay baa mahad looga horeyn, ilaahay baan mahadnaqaynaa runtii maanta waxa kale mahadnaqay tiimka degmada Maxamed Mooge guuleystay. waxa kale mahadnaqay tiimka degmada Maxamed Axmed Dhagax oo si fiican noola ciyaaray. ciyaartu waa saddexgal iyo walaaltinimo. halkudhiga degmada Maxamed Mooge wuxuu ahaa degmooyinka wada walaalo tiim baanu muujinay ee degmooyinka wada walaalihiin. Axmed Dhagaxna waxay muujinayeen maxay yihiin oo si fiican noola ciyaareen, si fiican noo hambalyeeyeen. ciyaaruna waa saddexgal fadiyabo waa bahdeen malcabna ma hadnaqan insha Allah ilaahay waxaan garjeenay in ciyaaruhu socdaan aad aad mahadsan. habkee ayuu noqon doonaa tartanka degmooyinka caasimadda Hargeysa ee kan xiga waa kan Cabdikariin Axmed Mooge maayirka caasimadda Hargeysa oo ka warbixin doona weydiintaasi. koobkani inuu koob macno weyn oo qiimo badan kan dhawaad ogtiin waanu cusbayn hoostuu naga soo galay wasaaradda shirar badan baan wada galay waxaanu markaa yaanu baaqani laakiin ka dambe loo joogay oo nool waxaanu arki doontaan diriisyada ay ku ciyaarayaan degmooyin oo isbedelay kabaha isbedelay koobka oo isbedelay iyo ciyaartooygu halkan kala taga koob iyo wax ka weyn kala taga insha Allah taala ayaan halkan waxaanu sidoo kale abaalmarimo qaali ah sanadka dambe ugu talagali doonaa kooxda edebta ama akhlaaqda qaada koobka gobonimada iyo akhlaaqda iyo martigelinta kooxda qaada ayaanu koob isaguna macno weyn leh isagana markaasi wasaaradda kala hadli doonaa inuu ku jiro abaalmarimaha la bixinayo. kaalintee ayuu ku lahaa TV-ga qaranka Soomaaliland tabinta tartankii degmooyinka caasimadda Hargeysa waa kan Cabdirasaaq Cusmaan agaasimaha TV-ga qaranka oo barnaamijka bandhigo uga warbixiyay waxaanu yiri ugu horeyn halkan si toos ah uga socoteen ciyaaraha kala duwan ee degmooyinka ka dhacayay waxaan adigu mahadcelinay cid kasta oo ka qayb qaadanaysa ciyaarahaas oo malcab ugu horeeyaan oo runtii aan ku xasuusanay in ciyaarahan social warahaan iyo barnaamijyada uu soo gudbiyaan wax fara badan laga faa'iideystay runtii telefishinka qaranka Soomaaliland muddadii halkan ciyaaruhu ka socdeen
waxay si toos uga sii dayn jireen dhammaanba degmooyinka maalinta bilaabmeen ilaa maalinta ay dhammaadeen taas oo ahayd hawl weyn waxaana dabcan inta faraha badan leh aan xoogga saarnaa oo aan ogsoonnahay in mas-uuliyadka qaran ahaanna saaran ay tahay inaanu ciyaaraha sidooda u soo dayno cid kasta oo ka sii qaadanaysa telefishinka qaranka Soomaaliland aad baan ugu mahadcelinayaa oo leeyahay waa waajibaadina wada saaran sidoo kale hawlaha faraha badan ee telefishinka qabto waxaa ka mid ah inaan local gaar u sameeynay sportiga kaasoo aan ugu talagalay in ciyaaro khaliya oo ka baxaan oo ciyaaraha si toos uga baxaan dhammaantiin baddaawadilaad baan ugu mahadcelinayaa cid kasta baxday sportiga waa sportiga wuxuu faa'iido weyn u leeyahay isdhexgalka bulshada caafimaad ahaan dhaqaale ahaan iyo weliba horumar ahaan maanta Soomaaliland sportigeeda aad ayaa loo ammaanayaa dhalinyarada faraha badan ee institutionada almalca ka mid tahay ama ciyaaraha ka mid yihiin ee hawsha gudbinayaan aad baan ugu mahadcelinayaa aad baa mahadsantihiin haddaba maxaa laga xasuusan doonaa tartankii degmooyinka caasimadda Hargeysa oo ay sanadkan hanteen xulka degmada Maxamed Mooge